haweeney aad u jecleyd alaabta hidaha iyo dhaqanka, waxayna ahayd mid alaabtaas ka taxadarta oo ku ilaalisa qolkeeda khaaska ah. Maalin maalmaha ka mid ah, ayadoo hagaajinaysa qolkii ayaa waxa u soo galay wiilkeedii yariiska. Waxa uuna dhulka ku riday mid ka mid ah alaabtii hidaha iyo dhaqanka oo ka samaysnayd dhoob aadna qaali u ahayd. Hooyadii aad ayay uga carootay wiilkeeda yar, waa ayna habaartay ayadoo careysan. Waxa ayna dhahday, dhagax weyn oo lafahaaga burburiya samada Allah kaaga soo rido. Ninkeeda ayaa ka carooday habaarka hooyadani ay habaarayso wiilkooda, wuxuuna xasuusiyay xadiiska Nabiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee oo ahaa: ha habaarina naftiina, awlaadiina iyo maalkiina. Waxay ku aadi kartaa saacad ay samada furan tahay, Allana uu idinka aqbali karo xaggiina. Hooyadii waa ay yar murugootay. Kadib waxaa ka soo wareegtay muddo fara badan, waa ayna ilaaween habaarkii oo mar hore u gudbay samada, iyadana aysan ogeyn. Habaarkaasna waxa uu ka dhacay iyadoo aad u careysan. Waa ay fududeysatay habaarka, laakiin Alle xaggiisa kama fududeen. Wiilkii waa uu koray, asagoo la koray walaalihiisa. Waxa uu ahaa kan loogu jecel badan yahay qalbigeeda, waa ayna jecleyd in ka badan awlaadeeda kale. Wuxuu ahaa kan ugu baarisan carruurta oo dhan. Hooyadan waxay u muujin jirtay naxariis aad u fara badan iyo dabacsanaan gaar ah. Markii uu ka soo qalin-jabiyay jaamacadda oo uu helay shaqo, hooyadani waxay u ahayd maalin ciid ah. Si ay u dhammaystirto farxaddiisa, waxa ay u raadisay gabadh uu guursado. Waxa uuna guursaday gabar wanaagsan oo hooyadiis ay u soo doortay. Inta uusan dhicin guurka, maalmo ka hor waxaa la bilaabay dhismo guri uu leeyahay wiilkan aabihiis oo qadiimi ahaa. Wiilkii waxa uu soo raacay aabihiis si uu u soo fiirsado shaqadan dhismaha ee aabihiis uu aado maalin walba. Wax yar kadib waxa uu ka fogaaday indhihii aabihiis. Mar qura ayaa waxaa la maqlay qaylada wiilkan, waxaana maqlay nimankii meesha ka shaqaynayay. Wax yar kadib waa la waayay codkii, mise waxa ku dhacay dhagax weyn oo ka riday dabaqii, waxa uuna ku dhacay dhulka. Waxaa si degdeg ah ku soo gaaray nimankii dhisayay guriga, waxayna heleen asagoo suuxsan oo miyir aan lahayn. Waxaa loola soo cararay isbitaalka, asagoo lagu soo qaaday gawaarida gargaarka degdegga ah ee ambalaasta, waxaana la geliyay qolka la geliyo dadka u baahan gargaarka degdegga. Aabihii waxa uu wacay xaaskiisa, waxa uuna u sheegay waxa dhacay. Waxay awoodi weysay inay hal eray ku celiso, xataa waxay kari weysay inay oyso. Waxay soo xasuusatay habaarkii ay habaari jirtay wiilkeeda markii uu yaraa. Markii ay naxday kadib, waa ay oysay, waxa ayna ku dhacday dhulka, waa ayna suuxday. Markii ay soo miyirsatay, waxay soo aaday isbitaalka, waxayna aragtay wiilkeeda oo jiifa. Waxay u malaysay in wiilkeeda uu la hadlayo, uu leeyahay, hooyo, adiga ayaa habaaray, waa kan natiijadii habaarkii. Waa ay ilmeysay, waxa ayna barisay Ilaahay, waxa ayna dhahday, yaa Rabbi, ii dambi dhaaf, wiilkaygana ii caafi. Mar walba waxaad ahayd mid noo naxariista. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين.
waxaan ku habaaray wax aad u xun isagoo yar. Waxay ahayd habaarkii ugu dambeeyay ee afkayga ka soo baxa. Maalinkaa kadib maan habaarin carruurtayda. Ilaahayow wiilkayga ii cafi, habaarkaygana ha ii qabanin. 3 maalmood hooyadii kama aysan tegin isbitaalka. Waa ayna soontay 3 maalinba. Habeenkii oo dhan waxay u taagneed salaad, ayadoo Alle u baryaysa si daacadnimo ay ku jirto. 3 maalin kadib waxaa soo kacay wiilkii. Waxa uuna arkay hooyadii oo agtiisa jiifta. Laabta ayuu geliyay, waa uuna dhunkaday. Ma aysan rumaysanin waxa indhaheedu ay arkayaan. Waxay u sujuuday Allah, waxayna sujuudda ku qaadatay daqiiqado ayadoo u mahadcelinaysa Ilaahay, kaas oo ka aqbalay ducadeeda una soo celiyay wiilkii ay ugu jeclayd carruurteeda. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. haddaba daawade haddii aad ka heshay muuqaalkan fadlan subscribe saar si aan u soo badino